ورنا ياك تقرضو وما تنتينا فريس صارتي والدين باينو سو غليسا سو فريس فريس ardaydiinan sida wada ogtihiin waxaynu galay imtixaan baynu ka soo baxnay waa wada ogtihiin wasaaradda waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalidu inay wax walba hagaajisay in la qaabeeyay imtixaamaadkii in la mamnuucay qishkii in la mamnuucay musuqmaasuqa imtixaanka qof waliba arday kasta inuu sidiisa u soo baxo aqoontiisa ku soo baxo waxa ogtihiin in meel walba la hagaajiyay waxa ogtihiin in ardaydu aqoonta yeela maanta la helay maadaama ay isku xirmeen oo aad loo adkeeyay wasaaradda waxbarashada iyo dadka waalidiinta ah soo ma ogidin idigu waalidiin baa timiya waa si wanaagsan waalidiin si joogsan doona waxa ogtihiin maanta in qof kasta oo imtixaankii galay waxa jira dad arday marka imtixaanka ku dhacaan uu moraalkoodu dhinto oo moodaya in ay noloshiiba ka dhaceen looma baahna inaad sidaa yeeshaan waayo maanta halkan waxa fadhiya arday imtixaankii hore dhacay oo iyagu dadaalay laakiin maanta deegaanka oo dhan wanka u galay maynankii halkaas wariyaa istaag kaale wariyaa ninkan waa aragtaan wuxuu ka mid ahaa dadkii dhacay imtixaankii hore markii uu dadaalay ee uu baraarugay ee maskaxdiisa kaga shaqaysiiyey ee waalidkii la kulmay ee si fiican looga wada qayb qaatay macallimiintii isku xidhmeen waalidku maanta dowlad deegaanka wanku uu galay imtixaankii oo dhan qof ka horeeya ma jiro marka waxaynu u baahannahay qofku markuu hadduu dhacaba inuu marka qofku dadaalo oo waxbarashadiisa la socdo oo xiisadihiisa la socdo oo maadooyinkiisa la socdo oo uu dadaala loo baahan yahay casharkiisa kun jeer ku noqdo maalintii isagoo xafidsan habeenkii seexdo subaxdiina uu la soo tooso qofku markuu sidaa yeelo wuu baasaya laakiin kuwiina sidaa yeeli waayey ee baraarugu waayey marka hore marka dambe haddaad dhacdaan bayna jigtadiina ogaataan waxaa loo baahan yahay inaad dib u baraarugtaan sida wiilkan oo kale maanta ninkana tusaale u yahay dadka oo dhan wuu mahadsan yahay iska fadhiisaade waxaan idiin sheegaynaa adeer dhamays hawsheeda waxaan idiin sheegayaa horta maanta halkan maanta meel fiican baa maraysaan adduunyada dheef la xoojo dharaar badaa baa shaqaysa 20 intiina dhaaftay iskuulkiina idin dhamaaday siyaasadda dhinacyadeeda dhaqaale idinka ku fiican idinku dhalinyaro dhulkeena dhaqaajiya hawlihiisa dhabbaan kuula hadlayaa dhamaystirka waajibkiina waqtigu dhaxal buu sidaayay ayaamuhu yay ku dhaaf tahriibta haddaad ku dhoofto haddaad iska dhibku waalidkaa mutaystay haddaad dhaqsabay lowdo haddaad iska dhababacayso dhuyaashaad iskaba dhaqaaqdo tahriibta haddaad ku dhoofto qaxoontiga haysu dhiibin dhulkaagaa laga hodmaaye idinku dhalinyaray dhulkeenna dhaqaajiya hawlihiisa استاذ هذا محاتري استاذ سودو والك كاله والكن waa waalid إذا كان هذا كذا absolutely أنا راد بعض ما تصدق الله يطول العمرك سنة كيورين بلا سعودي ما يجينا كي كله خد كبو كبح برجي سدي امتحان كي ugu dhacay dibu ma aan arago imka khasaarun buu noogu sugan yahay maalin ba mid buu iyo xabagle wax buu iska noqon waa lu taagweyno ku noqon laakiin kaas wuxuu yiri أبغى نقول كي كمان تبغى نقولنا يا إتحان كهذا العيال ده كنا ما نتوقع وكا كذا هذا لا كيس هنا كا دعني كيس هذا كا وحكا صاري وهاي هذا قف خير هذا قف خير اسمه تلكره هذا والد كي وطلن هذا وحبر شدي سلا صعل هذا لو قعنت السنة وهاين هذا لو معلمين في سكول كلا كاشنين هذا رديو ده واسكاش